yahay maalmihii ugu dambeeyay hadaladii ay sheegayeen mas'uuliyiinta dalka Itoobiya waxaan dul istaagi doonaa qodobka koowaad ee barnaamijka kugu soo gudbin doona goodinta ciidanka Itoobiya iyo waliba sida ay wax u rabaan iyo qaabka ay wax u doonayaan oo aan aad u turxaan bixi doono hadduu Allah idmo wali safiirka Soomaaliya u fadhiya Itoobiya waa uu shaqaynaya safaaradda Itoobiya Muqdisho sideedii bay u furan tahay shir walba oo arrimaha dibadda looga hadlayana waa xaadir safiirka Itoobiya Muqdisho u fadhiya sidee dawladda federaalka Soomaaliya wax u wadaa shacabka Soomaaliyeed militariga Itoobiya u hanjabaya madaxdii Itoobiya ayaa u goodinaysa safiirkina Muqdisho lagu haystaa isma qabanaysa sidee wax u jiraan qodobka labaad ee barnaamijka ayaan kugu soo gudbin doonaa hadduu Allah idmo madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle waa ninka laga sugayo go'aanka kama dambeynta ah ee xiriirka loogu jarayo Itoobiya hadduu yiraahdo xiriirka Itoobiya Soomaaliya ma jari karto waxaa muuqata in hadalkiisa la qaadanayo shacabka Soomaaliyeed maxay arrintan u fiirsanayaan maxaa la sugayaa maxay tahay sababta wali hadallada noocan ah ay dhagahooda u soo gaarayaan madaxdii dalka ugu sareysay oo sidaas ah iyo waxaan isbarbar dhigi doonaa shacabka Soomaaliyeed sida ay uga dhidhinayaan arrimahan isdaba joogga ah intuu barnaamijku socdo qodobada iyo qodobo kale ayaan isla eegi doonaa magacaygu waa Cabdilaahi Balwaan waxaan ahay wariye soo gudbiya xogaha qarsoon aniga shaqadayda hay ugu heefin kuna soo dhawow barnaamijkii oo faahfaahsan haddii aad channelka ku cusub tahay xusuuso channelkan mooyaane meel kale igama daawo karaysa sidaa darteed channelka subscribe saaro ka mid noqo saaxiibada ku xiran soo dhawaada channelka qof walba waa inuu subscribe saartaa barnaamijyadu waa isdaba joog aan ku bilaabo militariga Itoobiya ayaa shaaca ka qaaday inay naftooda u huri doonaan inay weeraraan Soomaaliya oo waliba ay xoog ku hirgeliyaan heshiis beenaadkii Addis Ababa ay ku saxiixdeen hogaamiyaha jabhadda SNM Muuse Biixi iyo waliba ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed warkan waa ka kulul yahay wararkii hore oo ay madaxda Itoobiya sheegayeen balse inta aanan faahfaahinta go'aanka ciidanka Itoobiya iyo warka ay maanta shaaciyeen u guda gelin qorshaha Itoobiya ee heshiiska ay hadda ku dhimanayaan miisaan intee la eg buu ku fadhiyaa ma hadalka Muuse Biixi bay duulaan ku soo galayaan base waxaa jira kalsooni kale oo ay Itoobiya aaminsan tahay haddaba warka waa muuqdaa in la iska inatira maaha haddii madaxdeena qaranka ay nadiif ka yihiin arrinta badda iyo heshiiska kowdii bishan ka dhacay Addis Ababa ilaa iyo hadda safiirka Itoobiya Muqdisho ma joogi lahayn haddaysan madaxdu far ku godnayn ilaa iyo hadda lama diideen wasaaradda arrimaha dibadda in la dayactiro la tayeeyo wasiirna loo sameeyo ma isweydiisay wasiirkii waaba iscasilee wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda meeluu ku dambeeyay ma isweydiisay haddii wasiirkii iscasilay arrimaha dibadda wasiir ku-xigeenkiina aan lahayn wadankuna uu yahay bilaa wasiir arrimo dibadeed oo wasaarad arrimo dibadeedba aan lahayn safiirkiina uu Muqdisho ka shaqaynayo waa safiirka Itoobiya oo waliba uu madaxtooyada joogo ma iga dhaadhici kartaa Xasan Sheekh waxba kama oga heshiiskii dhacay 2 January adan ka raba idaawanaya hadduu hadalkaygu uu yahay midaan sax ahayn hoos ku soo war iswaafaji dawladdii oo wali safiirka Muqdisho ku haysata dawladdii oo diidan wasaarad arrimo dibadeed inay howl gasho wasiirkii waa iscasilay waa madaxweyne u tartamaya waa musharax u tartamaya madaxweynaha Puntland Abshir Umar Huruuse ayaa la yiraahdaa wasiir ku-xigeenkii aaway wadanku wasaarad ma leeyahay maya wasaarad arrimo dibadeed ma leeyahay madaxdeenu haddaynan heshiiska January Addis Ababa ka dhacay kowdeedii aynan madaxdeenu waxba ka ogeyn maxay safiirka hoos uga haysataa maxay tahay safiirka madaxtooyada dhex jooga intaasoo idil waxay ku suurto gelinayaan xaqiiqda heshiiska annagana loogu sheegay inuu Muuse Biixi kaliya ku egyahay haddaad rabto inaad caddayn badan sii ogaato ma xusuusataan islaamta adna aadan la yiraahdo mar kastaba Soomaali nacaybka caanka ku ah oo qadiyadda Somaliland duulisa hadal ay jeedisay ma xusuusataan Muuse wali Addis Ababa jooga Muuse wali Djibouti jooga oo aan Addis Ababa aadin
ayay adna aadan shacabka hargeysa waxay u sheegtay inay jiraan heshiis madaxda Jabuuti joogta ay ka midaysan yihiin kaasoo farxad geli doona shacabka ku dhaqan gudaha Soomaaliland adna aadan ayaa sheegtay wali Muuse Biixi oo Jabuuti jooga waxay ka hadlaysay maalinta soo ma aha Ethiopia aqoonsanaysa annaguna bad iyo birin baynu siinaynaa madaxdeenu nadiif kama ah arrinta heshiiska 1 January laakiin dadka Soomaaliyeed oo aanan ka fiirsan oo aan dib u eegin hadallada mas'uuliyiintu waxay seefta gasha kala baxaan oo ay iska aaminaan haday arkaan madaxweynihii baa yiri iska aaminayaan oo isaga sacbinayaan waana sababta keenaysa inuu qofku si sahlan gayigeena u iibsado masaajid ku yaala madaxtooyada Soomaaliya maalin ka hor Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu ka yiri qof iibsan karta dhulkeena ma jiro haddana Ethiopia xadgudubkeeda ma arki karo si isku waafaqaysa madaxweyne inaad shacabkii tiraado qofna annaga naguma xadgudbi karo haddana xiriirkaagii arrimaha dibadda aadan wali wadanku wasaaradda arrimaha dibadeed ma laha go'aanka cayrinta safiirkana meel kale laga sugaya ala kulli xaal warbaahinta gudaha Ethiopia maanta waxa ay shaacinaysaa in ciidamada Ethiopia ay wacad ku mareen sheegeen inay naftooda u hori doonaan badda Soomaaliya ee heshiiska lagu saxiixay inay xoog ku soo gacan galiyaan hadday doonaan waxay yiraahdeen nafteena aan ku waynu duulaynaa waynu qabsanaynaa dhulkaasna qasab ayaan kula wareegaynaa bal ilaahan idinku dhaariye dawlad meeshaas maraysa sidee safiirkooda loogu haysan karaa magaalada Muqdisho ilaah baan idinku dhaariyo dawlad inta maraysa sidee dabacsanaan inta la eg ay dawladdu ugu dhaqmi kartaa maamulkeenu muxuu sugayaa farbaa ku godan sida darteed warbixinada laga helayo goodinta Ethiopia militarigeeda iyo siyaasiyiintooda markaan inta uga tagno warbixinta safiirkan Ethiopiaanka ah ee Muqdisho jooga oo madaxtooyada ka dhex shaqeynaya walina shaqadiisa wata oo ay u sii dheer tahay horta sirta qaranka gacanta ku haysta maxay yeelay madaxtooyadu jooga arrimaha dibadda iyo sirta Soomaaliyana gacanta ku haysta maxaa yeelay shir kasta oo beesha caalamka loogu yeerayo hadday tahay mid official iyo hadday tahay mid laga qarinayo shacabka oo hoos ah intaba xog ogaal u yahay nin marka og cidda aan la xiriireyno sirteena Muqdisho u fadhiya sideen Ethiopia isaga qaban karnaa adaan ku weydiinaya shacabka Soomaaliyeed waa dadaaleen waliba waxaan arkayay saacadihii ugu dambeeyay shirkad nin Somalilander ah ama nin taageerayaasha Muuse Biixi kamida oo shirkad xawaaradeed lahaa ayaa isku dayay in uu xayisiin u sameeyo Ethiopia inay la wareegto badda Soomaaliya ilaahan ku dhaartay application-kiisii Soomaalida siday u galeen aniga waa idhiirigelisay maxay rasidii Soomaalidu isugu dubayeen ma maraysan kartid balaayo waxay naga haysataa marka shacab dhiifoon oo dhiiran ayaan haysanaa shacab dhiifoon oo dhiiran oo Soomaalinimadu ay ka go'antaan haysanaa laakiin balaayo waxay naga haysataa madaxdeennii baa fari ku godan tahay madaxdaadu haddayba fari ku godan tahayna ma sahlana inaad si fudud ku guulaysato waxa la yiri cayrinta safiirka iyo waliba xiriirka in loo jaro Ethiopia waxay ku xiran tahay go'aanka Ismaaciil Cumar Geelle militariga noo dhaaranayo iyo madaxda noo gafaysa ee Ethiopiaanka ah waxay ku xiran tahay la yiri in go'aan laga qaato Ismaaciil Cumar Geelle inuu aqbalo bal ilaahan idinku dhaariye habaarkan haysta muxuu yahay maxay tahay madaxdeena sababta ay jeebka Ismaaciil Cumar Geelle ugu jirto war Xasan Sheekh Mafaraan laga hayaa see wax u jiraan ilal xogogaada oo aan uga soo sheekayn doono barnaamijyada soo socda ayaan ku ogaaday sababta Xasan Sheekh uga dambeeyo Ismaaciil Cumar Geelle waliba waa sabab cad oo markaan idin sheego aad la yaabi doonto laakiin barnaamijyada kale ee soo socda ayaan ka dhigan doonaa haddaad danaynayso inaad wax badan ka ogaato arrimaha Ismaaciil Cumar Geelle iyo sababta Xasan Sheekh wali jeebka ugu jiro channelkan YouTube-ka Aftahan Production subscribe saaro halkan ayaan ku soo bandhigi doonaa almuhiim militariga Ethiopia waa noo soo dhaaranaya
dowladda Itoobiya si qaawanay noo weeraraysaa madaxdeeduna waxay leeyihiin Ismaaciil Cumar Geelan go'aan ka sugaynaa kaala iska arag ummaddeenu halkaasay maraysaa sidee marka xal loogu heli karaa waxaanoo dhibaato ah in cadaadiska dowladda Xasan Sheekh Maxamuud la kordhiyo in aan la aqbalin barabagandada ay abaabulayaan masaajidka waxyaabuhu ka sheego in arrintaas aan loo dhaganuglaan madaxweynuhu masaajidka markuu joogo wuxuu u hadlaa si innaba aan caadi ahayn laakiin markuu masaajidka ka soo baxo ficilku meeshiisu ka sii wadaa musuqaan la dagaalaynaa masaajiduu joogaa bannaanka marka la yimaado xafiiskiisa cid ka musuq badan ama qoyskiisa musuq cid ku gaadha oo Soomaali ah ma jiro wadaad kamid ah culimada Soomaaliyeed ayaa hadda ka hor Xasan Sheekh oo golaha shacabka fadhiyo wuxuu ku yiri madaxweyne qisa dhacday wadaadkuna asoo ula jeeday madaxweynaha uu sarbeebay wuxuu ku yiri wadaad baa hadda ka hor wadaadkaas sidaa leh wuxuu u sarbeebaya Xasan Sheekh oo golaha shacabka fadhiya wuxuu yiri hadda ka hor baa wadaad ka istaagay masjid si uu jamaacada halka joogto u baraarujiyo wadaadku wuxuu jamaacada u sheegay in sadaqada lagu dadaalo sadaqa la baxsadana ay ugu qiimo badan tahay qofka sadkiisa inuu sadaqaysto tusaale cuntada uu cunayo inuu sadaqaysto kadibna uu ka qado ilaan jamaacada masaajidka waxa kamida xaaskiisii waxay go'aansatay in qadada wadaadku markuu dhameeyo wacdiga qadu doono laha Soomaa in qadada uu guriga u doonanayo ay sadaqayso sheekhi markuu wacdiga dhameystay guriguu aaday markaasuu salaantiisii wuxuu ku yiri qadada ii keen markaasuu tiri saygaygiyo sheekhow adiga soo ma dhihin sadaqada waxa ugu wanaagsan sadka in la baxo haa buu yiri hadda anaga sadkii aan noogu talagalay qadada ahayd waa sadaqay markaasuu yiri war adiga kaama wadinuu yiri jamaacada kale wacdigaas ku socday wacdiga adiga kuma socdo macnaheedu muxuu yahay musuq madaxweyne aad masaajidka ka sheegto qoyskaaga markaad u tagto ma waxaad tiraahdaa war musuq aan la dagaalamayno idinku kuma jirtaan waxa soo dhan marka isku soo dhow cadawga nagu soo duulayo waxa nooga daran Ismaaciil Cumar Geelle iyo ragga la shaqeeyo Xasan Sheekh Maxamuud Kowkay bal aan aragno meesha xal ku dambeeyo isha ku hay channelka YouTube-ka Aftahan Production si aad ula socoto barnaamijyada soo gudbiyo barnaamijkan mid labada intaanu ku kulmi doono waa balwaano idin leh nabadgelyo